بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن داوديال ومركله iyo barnaamijkeena kulanka xamdi oo daalab uga barateen TV-ga Universal studio-giisa magaalada Nairobi waxaanu barnaamijkeena kulanka xamdi aalaba kaga hadalnaa arrimaha bulshada iyo siyaasadda barnaamijkeena maanta waxa ay gala qayb galaya dumar Soomaaliyeed oo si wacan u bartay diinta Islaamka gabdho wadaada ah aqoonna u leh diinta Islaamka waxaanu kaga hadli doonaa guurka iyo dhibaatooyinka guurka uu leeyahay maxaa faa'iido oo guurka uu leeyahay maxaa horta diiniyan loo jideeyay kaalin intee la eg buu mujtamaca ama bulshooyinka adduunka ama gaar ahaan caalamka islaamka kaga jira guurka maxay tahay burburka ku yimaada qoysaska Soomaaliyeed saameyn intee la eg ayuu burburka ku yeeshaa dhalaanka waxaan jeclaan lahaa barnaamijka waxa marti inoogu igala qayb galaya gabdhaha u jeedaan hadii aan ka bilaabo ee dhinacayga midig waa Qawlo Miir Gaboose waxa sidoo kale ku xiga Fardowso Sheekh Xasan Faadimo Maxamed Daahir waxa ka sokaysa aan iraahdo Ijaabo Maxamed Nuur iyo sidoo kale Maryan Shariif waxaan ka marnayn gabdhaha nagala qayb galaya oo fikir iyo aragti waxay ka qabaan iyagana ku kordhin doona barnaamijka inta aan wada joogno waxaan jeclaan lahaa marka hore inaan ku bilaabo Qawlo Miir Gaboose waa gabar aad u daayar oo dhalinyaro ah diinta islaamkana si wanaagsan u baratay Qawlo barnaamijkeena waxaanu kaga hadlaynaa guurka iyo faa'iidooyinka uu guurka leeyahay inta aan loo galin dhibaatooyinka guurka ay gabdhaha kala kulmaan inagoo inta maasha wada joogno inta badan ay gabdho dumar yihiin si sareexad la uga hadli karaan cabsi la'aan dhibaatooyinka guurka ay ku qabaan iyo faa'iidada qoysaska Soomaaliyeed uu leeyahay bulshada caalamkaba waxaan jeclaan lahaa horta muxuu yahay guurka maxay tahay asbaabta loo jideeyay diiniyan bismillaah إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله منها وإياكم فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أولا وقبل كل شيء إلهي ينكم هذلنا سبحانه وتعالى مهد يليق بجلاله سبحانه وتعالى أولا نقدق هرتا قبل مسلمات وإحنا نقفاسي كتاب كيس قرآن كريم يسنة رسولك عليه الصلاة والسلام أما بعد هذا أصلا لابته سؤال شيء وديس ولا شيء أو أهيت محوية أهدافته الزواج في الإسلام أهدافته ويبدون تهي لكن وانصاكوا بي وحنك صادقي لح أهداف الإسلام وقلت لقلي جورك أما الزواج أهداف تاس أو كلا تكثير عدد المسلمين التحسين والعفاف السكن النفسي الذرية الصالحة التعاون على البر والتقوى غض البصر أيضا مد كوباد تاعي أهداف تكوباد اللي سمي جورك وحيت هرت إن لبضيو مسلمين تعدد كذا أي بطان ضدك مسلمين وأنا سنة من سنن المرسلين مد اللباد اللي جهلا وحيت هاي التحسين والعفاف دور سنان إيوه دجنان ayaa laga helaa guurka waxa kale oo laga helaa sakan nafsiya deganaan nafta gudaheeda waxa laga helaa adhurriya as-saaliha waxa kale oo laga helaa at-taawun 'ala al-birri wat-taqwa waxa kale oo laga helaa in uu laabo araga anagoo kala bixbixin doona lixdaas ahdaaf rasuulku wuxuu leeyahay alayhi salaatu wassalaam xadiis uu soo saaray Bayhaqi ورنا يا أمامة رسولك وحوده عليه الصلاة والسلام
تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم رسولك وحده صلى الله عليه وسلم قورسدا سبب وحان ربا إنا نقطان ummadda ugu badan ina badataan ayaan rabaa hal guursado rasuulka kaleey salaatu wasalaam xadiiska uu soo saaray ibn maajah ay warinaysa Aisha bint Abi Bakr radiyallahu anha waxay tir Aisha wuxuu yiri rasuulka kaleey salaatu wasalaam rasuulka magaciisa markaa maqashaan ku saliya wuxuu yiri rasuulka an-nikaahu min sunanil mursaliin nikaahu waa sunnada dadka la soo diray waman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni qofkii sunnooyinka calashaan aniga aan leeyahay oo aniga khaaska ii ah iyo aniga waxaan sameeyay aana ku dhaqmin aniga iga mid ma aho calashaan ummadda nabi maxamed kama mid ahan midda labaad oo ah at-tahsin wal afaaf ilaahay wuxuu abuuray horta bini aadamka insaanka wuxuu ka abuuray jasad iyo ruux jasadka waxay u rabaa xaajaadkaasna waxa muhiim ah in loo oofiyo oo laga dharjiyo hadduu qofka jasadkiisa wuxuu u baahnaa uuna helin wuxuu ku dhacayaa inxiraafkaas oo ah in uu cisyaan la imaado iyo waxa la midka ah ruuxdana iyadana waxay leedahay xaajaad waxaana muhiim ah ruuxda laftirkeedana in la dharjiyo oo xaajaadkay u baahneed la siiyo waana laga maarmaan in ay hesho waxay u baahan tahay marka labada jaanib uu ilaahay u abuuray bini aadamka oo ah jasad iyo ruux jasadkiina wuxuu u baahan yahay wax uu ku dhargo ruuxdina waxay u baahan tahay wax ay ku dhargto jasadka marka maxaa lagu dharjiyaa jasadka wax lagu dharjiyo waxaa ka mid ah tafrii'u shahwa calashaan waa in uu helaa meeluu shahwadiisa ku guto jasadka waa inuu helaa qof nolosha la wadaaga oo shahwadiisa ku guto oo xalaal ah marka saas helo wuxuu noqonayaa qofka inuu dago hadii laakiin uu heli waayo wuxuu ka mashquulayaa khawaadirta wuxuu ka mashquulayaa jawaarixdiisa ma noqonayo marka ruuxdiisii ma noqonayso mid u faaruqda daacada ilaahay subxaanahu wa ta'ala laakiin markuu dhargo uu helo wuxuu u baahnaa ruuxda shaqadii loo abuuray ay tagaysaa ruuxda maxaa loo abuuray qofka bini aadamka hal ayaa loo abuuray wama khalaqtul jinna wal insa إلا ليعبدون لا إله سبحانه وتعالى جني إنس وما أبورن إني أنا يعبدان ما أهنه مرك جسد كوحي وربي لصيه روح ذو حين قنيسة إني أفارق ذو إني فكرته يكون فكرت آياتك إلهي سبحانه وتعالى آياتك كونية إني فيرسو إلا ما تعمل ونكسن أي نقنيسة سيداس درادد أيون النبي عليه الصلاة والسلام إذا تزوج العبد هادو أدونك قورسدو فقد استكمل نصف دينه وحود ما يستري قيب دينتي سكمقنيت فليتق الله فيما بقي انت كمقن إلهي وقعب صدو مركو أهادو قف قورسدي انو قورسدي لأجل عفاف انو كدور سنادو او أهادو وحو هلايا تحسين الفرج وتحسين البصر وتحسين الأذن وتحسين اللسان مشاعرتي سدن إني وناكسناتو هلايا فرجي أو في عنانايا أو وناكسنانايا إنديه أيا أو وناكسنانايا دقيه أيا أو وناكسنانايا عربك أيا أو وناكسنانايا مشاعرتي سدني أسجد أنه حد دريمايا دقنان مدى لباد مدى صدحاد هذا ماشي سوق بحا مدى لباد أو أهد التحسين والعفاف مدى صدحاد أو أهو حاو قلايا السكن النفسي إن أهداف تقولك اللي قلايا إتاقفك إن نفتي سيدكتو أنا هلا لذ جسدية معان جسد كيسة إنه هلا إلهي وحلاه في سورة الروم آية الواتنات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إله الله في سورة الروم آياتك إلهي وحكم ذا سبحانك يا إله وآيات من آيات الله قولك أنا ما أنتو حنكدقن عيار إلهي الله آياتك إلهي وحكم ذا أن خلق لكم إنه إذين أبوري نفيفياشي إنك أبوري لمانيال سببت لمانياش الله أبوري محيتاي إلهي أساكو جوابي لتسكنوا إليها وإنكو حسشان
حسلوني بس لوغا ما هرن بل إلهي وحود وجعل بينكم مودة ورحمة إلهي دحدينا وحو يالا إسجعيل إيا الرحمة آيات أفيرس باللوغ إلهي وحوكو بالله ومن آياته قبي دي آيات كان محين نقط إن في ذلك الآيات قورك إنو يهي منزل وين يوح وين إنو يهي آيات دانا كتوسيس إلهي آيات وحوك بالله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة حدنا إن في ذلك الآيات وحن صار آيات أيتها يأتها لكن لقوم يتفكرون قل فكريس مركز سنة إلهي والله لا لقوم يؤمنون لقوم يوقنون لقوم يعقلون لقوم يعلمون يا أولي الألباب دتك عقل قال هو إلهي الله مركزت إلهي نقدر دتك عقل سبحانه وتعالى مد أفراد والذرية الصالحة وحالة هلا guurka waxa laga helaa ahdaaftiisa ay tahay ilmo wanaagsan hadii lagu aas-aaso ilaahay subxaanahu wa ta'aala soo raali ka yahay markii ilaahay subxaanahu wa ta'aala soo raali ka yahay lagu aas-aaso guurka maxaa laga helaa awlaad wanaagsan laakiin guri markii hore lagu aas-aasay tiirar qaloocan maxaa laga sugayaa inuu dhisnaado mise inuu dumaya marka hore marka ikhwaani waxa la rabaa marka guursanaysid soo ilaahay kuugu kaalmeeyo إن أنيستد ويا إنما الأعمال بالنيات أعماش النية كسر قضاء وحانية ستامركا إن أقورتد لأجل عفاف إن أقورتد إنه النبي أمري عليه الصلاة والسلام إن نيد هذا أتكلمت أد إلهي كحرت سبحانه وتعالى أد لهذت وحن أقورسنا يا عفاف لكن هبلا قورستا هذيك أنا قورسة مركا كان قطع وقول قلوعا وقلوعي علشان كوين هذا الذرية الصالحة وأنبياء متكم إذا وديسنا إلهي سبحانه وتعالى في سورة آل عمران إلهي وصقله هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وحوده نبي يحيى عليه السلام النبي زكريا وحوده عليه السلام مركو وإلهي بريا سبحانه وتعالى إلهي يو وحاد إسيسا أولاد ونكسن أكتاذ إقسي إنك سميع الدعاء قضب كشنات ولقاها لأهداف تقولك وحيتاي إن أهيشيد قفكو وكالما سمفلك إيا الله كعبسك مركا لديسا يسيدا ذا بقوريقا وحوكا أبور ما وكبلو ما لبقف لبضاس قف أو هويني إيا نن لبضو ذاس مركو كبلو ذا قوركو هدو هذا مدفعا وحكسو بحا مجتمع عاس أو مجتمع آد وفيعان أو آد ودأوين ما أنت مركز قريه إن محلها اللي يسيهين أما قبضها هالليسن أما ويلكها هالليسن أما لبضوه هالليسين مركز إخواني قفل بهدو كتلقل لها مد كوبات منزلة كوبات هدو كتلقل لها كتابك إلهي منزلة لباد وكتلقل لها كتابك إلهي منزلة سدحات وكتلقل لها كتابك إلهي أنا كنت أخمي لهن آياتك إلهي وحنا أمراي وحا أهان لهن قريه سعداء وحا هلي لهن نحريس مودد إلهي شيئا هلي لهن رحمة إلهي شيئا هلي لهن لكن ما أنت محيطها خرار ولي وضافي قريها إسلامك إلهي وحا ورسنينا إنو إصلاحي قريها إسلامك إلهي نو أمر إن وناقل لإسفره والله يسوقو كالمية حمانتنا لقى ديرادو إلهي وحليها في سورة مائدة آية لبات وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وحا يسوقو كالميسان برق إيا سمفلك إلهي وحليها ها يسوقو كالميننا ياكو له خالق الخلق وإرقيس ها يسوقو كالميننا ودهي الله سبحانه وتعالى على الإثم والعدوان دنبي إيا عليتنا يسوقو كالميننا أنا محا يسوقو كالمينا عليتنا حاسد نمذا حقدك قلبنا وباق وحواية بكيري أوليو كجرتو أن ربنا إنا عانه قلنا ما نقلاي ولقيس وإنا قلوبتك كقدنا وحمدوه كجرة كدبوا إلهي نو قلنا يا علمك يا عانها مركو سمفلكاسي ماذا محا إيمانايا مركي قبدي وناكسناتو ويلكينا وناكسنات محا إيمانايا إن إيه هلان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام رسولك وحوده عليه الصلاة والسلام رحم الله رجلا
رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء رسولك وحير صلى الله عليه وسلم الله أن حريست marka wanaag la isfaro maxaa iimaanaysa in wanaag la isu kiciyo habeenkii salaatu leelka la isu kiciyo marka salaatu leelka la isu kiciyana maxaa iimaanaysa in aheshid ducada nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam nabiga ma taqaantiin la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha asaga dhahay رحم الله رجلا قام من الليل فصلى الله أن حريستو dhahay suubanaha kaleeyhi salaatu wasalaam nin kacay habeenkii kadibna tukaday markuu tukaday kadibna kiciyay xaaskiisii haday diidana biyo ku firdhiyo biyo ku shubay kalsoonidaas goorma iimaan kartaa biyo in la isku shuba iyadoo la hurdo goorma iimaan kartaa waa marka Allah subhanahu wa ta'ala xargiisa la qabsado maanta ya biyo isku shubi kara nin inaag isqaba oo biyo isku shubi kara qalla ma yujad hadii biyo isku shubana fidnada ka dhalata ma la damin karo ana jiifu biyo igu shubay miya meeshaas ka xanaaqaysa asagina biyo haduu ay ku shubto ana jiifay biyo ugu shubto maxad igu shubto waad furantaa saddexdaada qaada meel ku taalo maxaa keenay asaaskiya ka halaabay marka ikhwaani asaaska waa inaan hagaajisanaa waa inaan asaaska ka dhignaa xariga ilaahay subhanahu wa ta'ala kulligan waa inaan qabsanaa xariga ilaahay subhanahu wa ta'ala soo ilaahay noogu gargaaro sidoo kale Allah u naxariisto dhahay rasuulka kaleeyhi salaatu wasalaam haweeney kacday habeenkii tukatay كعسي زوج كذا هدو ديدين بيه كشبت حديث كانوا حاسوا صار أوريه أبي داود مد اللي حات أهدافت وقدم بيسي وحيتها يغض البصر وحال لجهلا جوركا إن الله بإنده حمانته لن وإنده كلابو إن إنده اللابنو وحمانته كلابنو هو أمر الله سبحانه وتعالى في سورة النور آية الصدنات آية الصدنية كوبات إلى عليها قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم رسولك وحالي عليه الصلاة والسلام وحاكو هذا رقم مؤمنين تا لا بأرقين قول كرم حالة لا إنو أرق الله بو أمر الله نمحوها لا بأرقين ومرك ثمرات كاللغا قرطو إيو مرها لغا هلا واي قولك وحودها هاي وحتكون هذا محمد عليه الصلاة والسلام وحلا بان رجع أرجوذا هنا حفظيان فروشتوذا آيات كلا قبلها أمر سنة واتسذن وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وحكون هذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام نبي جمع عيسى مرك الله شيخ كوسليا صلى الله عليه وسلم وحكون هذا قبلها مؤمنات كا حلا بان أيجنا أرجوذ هنا حفظيان فروشتوذا مرك إخواني فإذا لقى هلا وايقورك حديث أورنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وحير عبد الله ابن مسعود وحنا نسعون النبي عليه الصلاة والسلام مرك النبي وحير يا معشر الشباب وركولن كي دلن يرضوا من استطاع منكم الباءة قفكي أو ذكور ها فليتزوج قرصد هيا قرصد محوكي لايا ثم رضكوا بادواتنا فإنه أغض للبصر وحول لا بأقيه أرقود النبي عليه الصلاة والسلام وأحسن للفرج وحقونا أكسيا حبنت الترنك قف كان أوذ محو سمينا يا مرك رسولك أكوشيق عليه الصلاة والسلام وحير ومن لم يستطع قف كان أوذ فعليه بالصوم هصوم صوم كان محو ترايا فإن له وجاء وحويا دفان يا قاشان شهوذ أيوك إلى لنا يا ثمراتك نكاح وحاك لو كمد قفك هدو قرصد أصا مسكينة وحبه سنين يغنيهم الله من فضله إلهي سورة النور كلها هي آيات صدن إيه لبات وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله سبحانك يا أرحم الراحمين سبحانك يا إلهي وثمراتك لغاها لقورك وحال ده وحا أقورسان إسكاب لذا دادك قور لآنتا oo idin kamid ah iyo dadkiina wanaagsan dadka kamid ah oo adoomadiina ah ilaahay wuxuu yiri faqraha uga cabsanina guurka in yakunu fuqara hadii wax bahaysanin markay isguursanayaan yughnihimullahu min fadli ilaahay dheeraadkiisa wax ka siinaya allah waa waasi'un alim marka ikhwaani waxa la rabaa oo markastana laga rabaa
in ahaana kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tiirsan si wax walba noogu fududaadaan qofka muttaqiga calaamaadka lagu yaqaana maxaa waaye in waxba ayna dhibin ilaahay asaa ballan qaada waman asdaqu min allaahi xadiitha waman asdaqu min allaahi qiila ilaahay wuxuu leeyahay waman yattaqi allaaha yajcal lahu makhraja aayadda kale waman yattaqi allaaha yajcal lahu min amrihi yusra waman yattaqi allaaha yukafir canhu sayi'aatih wayucdim lahu ajra ballanqaadyadaas ilaahay aan ka faa'iidaysano ilaahay aan ka cabsano subxaana wa tacaala barnaamijkeennii kulanka xamdi ayaanu weli gudaha kaga jirnaa wadanka Soomaaliya markaanu ka hadlayno waxa la soo maray dhibaatooyin fara badan waxaanu aragnaa qoysas fara badan oo Soomaaliyeed inay kala tagaan oo burbur uu ku yimaado waxaan jeclaan lahaa guurku sidiisaba waxaa naloo sheegay inuu yahay laba qof inta ka bilowday qoys noqday qoyskana mujtamacaad fara badan oo isku tagay ay adduunyada ka kooban tahay Firdawso Sheekh Xasan waa sheekad barnaamij badan nagala qayb gashay aqoon diimeed iyadana si wanaagsan u leh Firdawso waxaan jeclaan lahaa maxay tahay sababta keenta burburka ku yimaada qoysaska Soomaaliyeed maxaa u sabab ah بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي سبحانه وتعالى إلهي بقى مهضله ثم كذبنا إلهي سبحانه وتعالى محاضرة أي نوسو جيدسي خولة إلهي هنغو أنفعه ميسانك حسنات كان الله أصاره أمثاشي ذوك لنا الله نوبضيو وحان كلو مهدو علينا يا ما أركتي حمدي يتيم كذا يا ويلشان ما أركتي نحيط التلفزيون يونيفرسال لما أنت وحن لا إلهي ميسانك حسناتك الله إذن سارو أهداف تيسي أردن وحن نود ما يسي خاولا نود ما يسي يمعنيه لقالها ما دام بربرك أسباب تتفكك أسرة كنت سما أسبابتاس محا السبب إيه سببت أقوى رئيسة أو كاريس ما أردت إنه جورجي كالفرما أمدمو وحاول عدم المسؤولية لبدا نقف آيات كي هذا أي آخرنا يسخوله إلهي سبحانه وتعالى هكا أجرسيه إلهي وآية من آيات الله لبدا يقف مركز جور سدان مسؤولية كوريس مسؤولية داس أو إلهي سبحانه وتعالى وصاري قبضي يويل كيبا مسؤولية أو مسؤولية ننكي كوريسة أو سجو خاص بقى مسؤولية قبضي كوريسة أو خاص أي وطهي هي مسؤولية أي مشتركين أو لبضوا ذكر حس رسولك عليه الصلاة والسلام حديثك رسولك عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن راعيته قفك سوى مسؤول وحيل الراعي ومسؤول كيهي ننكينا محو مسؤول كيهي والرجل راع في أهله ومسؤول عن راعيته ننكينا وحو مسؤول كيهي أهل كيسي أو إلهي سبحانه وتعالى وكل حساب تماي هوانا يدين وحي مسؤول كتهي ننكادي يقرقادي يا أولاد دي أي مسؤول كتهي إلهي سبحانه وتعالى والمرأة راعية في بيت زوجها وولده مركا إلهي سبحانه وتعالى نوون ويدين يقف كستوى مسؤولية ديسي وحا كينيس مركا بربركا كوبات لبدا نقف مسؤولية لصاري مسؤولية دي لصاري oo nin walba dhinaciisa ka dayacay mas'uuliyadaas waxay u dayacmi kartaa laba qaybood imma jahli oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala kitaabkiisa iyo sunnadiisa aan la aqoon imma in la yaqaano laakiin loo akhris ahaan loo haysto dameel malab saaran dhijiran Soomaalida yaani uu yaqaano qofkii aayaadkii iyo wixii laakiinse uusan ku dhaqmaynin labadaas keenaysa ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu inagu amray oo ehelkii ku amray ninkii iyo gabadhiiba inay naarti ilaahay subxaanahu wa ta'ala iska ilaaliyaan isagoo inala hadlayo subxaanahu wa ta'ala azza wa jalla wuxuu dhahay aayadiisa yaa ayyuhalladhiina aamanuu quu anfusakum wa ahlikum naara waquuduha an-naasu wal hijaara dadki iimaanka laga helayo naftiina iyo ehelkiinaba ka ilaaliya naartaas oo lagu hurinayo
kibriidka lagu horinayo ay tahay dhagaxaan iyo dad markaas siduu qofkii hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisii uuna baranin ama gabadhii ayna baranin say maaragtay naarta isaga ilaalin karaan mas-uuliyaddaas kow labo waxaa keenaysa labadii qof inay sirtooda labadoodaba xafidaan sirtii oo la fidiyo ama haweeneydii ay fidiso ama ninkii uu fidiyo ilaahay subxaanahu wa tacaalana wuxuu isaga dhigay labadooda dhar libaas hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahun buu dhahay alle subxaanahu wa tacaala haweenkii waxay idin yihiin raggii waxay idin yihiin haweenkii dhar idinkana waxaa u tihiin dhar qofkii go'iisii hoose hadduu ka hadlo oo sirtii bannaanka dhigo maaragta ilaahay oo aqrab min aqaaribkiisaba ha u sheego hooyadeed ha u sheegto ama hooyadiis ha u sheego laabudda reerkaas wuu dumaya asbaabta duminaysa waxaa ka mid ah sirta guriga oo bannaanka loo bixiyo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaamna wuxuu dhahay ninka iyo naagtiisa hadday sirtooda bannaanka dhigaan ilaahay mansilada ilaahay waxaa ugu maalinta yowmal qiyaama ugu dembi badan labada qofee isqabta ee sirtooda bannaanka dhiga guryaha marka waxaa dumiya asraarta oo bannaanka ay u bixiyaan labadii qofee isqabay qodobka saddexaad ee dumiya waxaa waaye dacfa aliimaan iimaanka qofka oo yar oo iimaankiisii uu daciif yahay oon guriga ilaahay subxaana wa tacaala buyuudda ilaahay aan dikriga ilaahay lagu akhrinayn oo ilaahay subxaana wa tacaala aan laga xuseyn oo sadaqadii masaakiinta aan laga gargaarayn oo qaraabadii labada dhinac ee ku imaatay aan la xiriirinaynin la'anaas dadku waxaa waaye nasabiyadda iyo sihriga labadaba waa qaraabo ilaahay subxaana wa tacaala qofkii maaragtay qaraabada gooyana maalinta yowmal qiyaamo ilaahay subxaana wa tacaala ba halkaas u fadhidaa oo ma aragtay riximka uu fariisanaya marka gabadhii oo ogoleen hooyadiis sodohdeed aan ogoleen iyo ninkii oo ogoleen ma aragtay gabadha madaxeeda waxa ku imaaday ضعف الإيمان أيا كينيسا إلهي سبحانه وتعالى دتكي قرقي أو إلهي سبحانه وتعالى أن لغو حسينين هذا سيدا إنوشك تخوله محاول هالرباء قفكي ننكي أما محيطولي إنو أمرو ريركي سي صلاة إلهي سبحانه وتعالى أنا رزقي إذن سينا يقول إلهي سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك لأنها الله سبحانه وتعالى وما من دابة إلا على الله رزقها إلهي برزقه وحكسته وإلهي أبوري لكن إنه ننكي أمره قبضينا أي أمرتو ننكي هذه سيدي هذا إنه شيء يسي خولو الحديث كي رسولك عليه الصلاة والسلام آيات كي إنه سدرير نيس قضب كسدح محيطو كلا قريها الدمي وحاكم ده قلة الصبر صبر كي أوير sabirkaas waxaa dhici karta qofkan inuu ninkii 9 ku fiican yahay laakiin uu 10 ku xun yahay 10 dulduleel uu leeyahay gabadhii saas oo kale yacni 9 ki fiicneed oon la eegin oo 10 ki dulduleel la eego waxay keentaa iyadana sabir waxaa ogaanaysaan nabi nuux calayhi salaam iyo nabi luut maxay ahaayeen haweenkiis maxay ahaayeen haddana نبي أولي العزم بوها نبي نوح عليه الصلاة والسلام هذا أكتس كافر ذا إهد نبي لوطنا وحشيد جرتي مالنتينا وأقيجين جرتي دبك هبان كينا وأهورن جرتي قوم لوط سي ما ارتدت كاس أولي بعتيان حدنا النبي قبي لعل وحد عكرت ننكي أو في عن إني امرأة نوحي امرأة لوط هواني ونقطه قبضي أو في عنا وحد عكرت فرعان يأهد gabadhu qabe aasiya ilaahay subxaanahu wa tacaala iyadoo nool qof uga dhisay ma jira beed jannada iyadoo noola beedkeedii jannada la tusay way dhictaa marka sabirka ilaahay subxaanahu wa tacaala inma yuwaffa as-saabiruna ajrahum bighayri hisaab ilaahay subxaanahu wa tacaala hisaab la'aan ayuu ilaahay ajirkooda u xisaabinayaa dadka saabiriinta ah ilaaha nagu daro subxaanahu wa tacaala عدم القناعة عدم القناعة قناعة أولوايو معناها سبحان الله نين كان قبل قرصدي
iyo maxay toole waxa laga yaabaa ninkii qawaam inuu yahay uu biilkii wuxuu awoodo uu gabadhii siiyo laakiin ilaahay rizqa soomu kala qaybinin subhanahu wa ta'ala dadka miyuuna wada simay dadda ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ilaahay ka dhigay tujaar dad wuxuu ka dhigay dabaq dhexe dad ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ka dhigay fuqara laakiin ilaahay biilmigiisu ilaahay subhanahu wa ta'ala uga dhigay iyadoo saatahay gabadhii isagoo qawaam ah oo wiilkii biilaya oo ma aragtay wixii awoodiisa siinaya ayay waxay fiirinaysaa wixii ka sareeyay gabadhii ma aragtay qadiifadii u taalay ama dahabkay haysatay gurigay deganeed ma aragtay baabuurtii ay lahayd inay hesho oo hal maalin taajir ay noqoto guryaha dumiska ugu weyn ee imaada qanaacad darrada ayaa ka mid ah marka qanaacad darradaas waxay keenaysaa gabadh ninkii laba u furan inuu gabadhii furo iyo inuu maxay toole ninkii tuug noqdo waxa arkaysaan amaanada inay yaraatay hadda ninka Soomaaliga ah يعني عرتي سموين لبا حب عنجير أتاقض أليس كذلك؟ محيط ولا لبا حب عنجير أتاقض نيك الصومالية محاكينا إني من نمذي يراتو وما أنت الآمن وايو رجي الصوماليات أكثر قاضي ما فهمي كرتان وحاكدن بيس قبر عن قناعات لهين وحا أغاني سهلك سبحان ربا قصير إنا نكون دارو نبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام مركي هاجر إن لكان سحرات أركتين أردوبض أي كده إيسو ودقي أتر إلهي مياكو أمرينات هل كان نوقت تكتو مركز سأديك أنا قلت جاي وحير النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلهي باي أمري إلهي هدوكو أمري تري إلهي إنما تضيع عيو ماشى لغو أرضو صفئي والمروة قفكي تجا قرناي تضبط جار الأرض نبي إبراهيم نبي إسماعيل عليه السلام isagoo yar lugihiisa gaajadi markii saas uu ka seeray zamzamka biyaha zamzamka meesha ka soo bixeen way marka waxa ogaanaysa qofka ilaahay haduu rabbi subhanahu wa ta'ala uu qanaaco yeesho in uu helayo ilaahay subhanahu wa ta'ala min haythu la yahtasib ilaahay ka risqayo taas gabdhaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogan iyo naftayda kulligin waa idinku waaninaya qanaacad darada waxay keentaa xuduudda ilaahay oo la gooyo see lagu gooyaa xuduudda ilaahay waxa ninkana uu leeyahay qanaacad darada ninkana uu leeyahay qanaacad darada sidoo ku leeyahay idin sharaxaya ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu baneeyay ragga inay afar guursadaan laakiin shuruud buu ku xiray Allah subhanahu wa ta'ala fankihu ma taaba lakum min an-nisaa mathna wa thulatha wa ruba' hawa ragga guursada haweenka wixii idin wanaagsanaada mathna laba laga bilaabay وثلاثة وربع لكن كيلو بني وانك شروطي مكمل اي وتهي سي شروطي مكمل او تهي waxa waaye hadda qof shaqo iska doonan kara hadii la dhaw shaqadaas akoonti waaye waxa la rabaa xisaabaadka inuu yaqaano waxa la rabaa khibrad intaas inuu leeyahay waxa la rabaa da'diisa intaas inay tahay shaqadii laakiin way banaan tahay qof kasta oo iskuul dhiganin ma doonan kara shaqadaas ragga marka isagoo awood lahayn oo tii hore fawaaxidatan حتى أن أودن أو الميسي الغيابة إنسان عشانين أو دكسي دجن أو سكول دجن أو حبه سنين أو أرضيين أو حلي إله سبحانه وتعالى إبني قناع الدرجة ماشي رجع كقش مركزه تيك لا قدري أو تيك لا قدري أو ماشي دان ضيع إيك وحس مناس تعرفنا وحكينا إن الدون جعل إله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران إله نوقش يجاي يعني وحج عليهن دتك شهودي لكن ناقيها ugu horeey markuu adduunkii jeclaado waxa keenaysa inuu dayaco xuduudda ilaahay uu jaro gabdhaha xuduudda ilaahay iyaga laftirkooda midalan ninkii oo awoodo oo haweenay kala guursado guryaha asbaabta ay ku burburaan yaani waxa waqti dheer u baahan tahay waxa keenaysa iyadana inay tiraahdo ay ilaahay baa baneey fankihu ma taaba lakum min an-nisaa mathna laba ilaahay ka bilaabay wa thulatha wa ruba' inay ku qanci weyso ilaahay subhanahu wa ta'ala ay iyadii sameeyso sixroolo u tagto qiso dhab ah oo ma haweeneydii soo sameysay ee iiga sheekaysay toobad keentay aan raba maanta inaan uga faa'iideeyo gabdhaha ma aragtay idaawanaya iyo ma aragtay gabdhihiinaan insha Allah biidnillaahi ta'ala qisadaas waxa waaye qof
ninkeedii markuu la guursaday qanaacad mayna lahayn wuuna si fiican u dhaqan jiray waxay samaysay marka maamadii meesha ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo ma aragtay dikri ilaahay maseerku ugu jiraa oo haweenkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa ogtiin xadiistii rasuulka calayhi salaatu wasalaam caaisha xataa waatay u imaanaysay zaynab binta jaxash ay rasuulka isla jooga ma aragtay ay ku cayday ay caaisha ay fiirsay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ugu jawaabtay يعني وداي وحتى هاي أبو بكر الصديق هاي واتو داي رسولك عليه الصلاة والسلام سارة نبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام واتي مركن هاجر إيش نبي إسماعيل يضم إيدال جرين نبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقول سنو جري واتي هنا سترك هذه ملائكة مركن ترانسيت أهاين قوم لوط سور رجاين نبي لوط وسعودين قوم كيس يسور رجاين صامرين هنا ستركي واتي لوجو بشاري نبي إسحاق أو من نبي يعقوب دلي أو نبي يوسف دلي هناسك وجرا لكن تعدي حدود الله حدود إلهي ما قد بكرتد إنا معها سليد كل الكشبتت بيا كل الكشبتت يعني سبحان الله لكن قيرداس ويجرتا إن قبضني هنا سترسا ملائكتي بابا إن وقب شاريسي أو كانت النبي إسحاق عليه السلام مركا ما قصة سبحان ربا إنا لقوا فائدة وقصة ربا معها وحان كتاب كأخرية معها وحلا إيش شيء maamadii arintaas samaysaa ii sheegtay oo toobad keentay waxaa dhacay marka waxay tiri haween baan u tagay sidayda kale uma seersan haweenkii markaan u tagay waxay dhaheen waxaan ku geenaynaa nin odagaaga adiga kaaga soo gooyo islaantaas lacag markaas waagaas 40,000 oo Soomaali ahayd iyo helay dhaheen soo qaaday dhahday ninkii markay ii geeyeen iyagii banaanka iga fariisteen keligee u galay tiri maamadii markaan u galay wuxuu yiri lacagtan iyo heelkan kaliya wax kuuma qaban karo arina ka horeysay ma ku sheegan saaxiibada waxay tiri may wuxuu yiri ila adiga aan ka zinaysto kuma sameyn karo ninkiina kuma jeclaysiin karo idinka og sixirka subhanallah inuu kufri yahay oo ilaahay subhanahu wa ta'ala oo milada kaga baxay oo haddana uu liibaanaynin qofka walaa yuflixu saaxiru xaythu ataa ma liibaana isaga ku soo laabana mana jeclaana bal ninkaas xataa shaqadii uu shaqeynaya laga yaabaa inuu ka fariisto islaanta ilaahay iimaan buu la damcay waxay tiri lacagtan ku kordhina wuxuu yiri lacag kasto malaayiin oo isiisid hawshaada kuma fulin karo ila adiga aan ku tago dhageysta walaalayaalo maamadii waxay tiri waan soo baxay waxaan iray tiri ma sameyn karo arintaas ma waxaan haweenkii aan soo noqday markaan soo noqday tiri ninkii sidaas u yiriye maxaa ii soo lugoyseen waxay ku dhaheen ma iska sameeysid odaga lagu soo fariisinaya yani qanaacad daradaan rabaa ina yani heerka taaddi xuduud Allah ilaahay xuduudiisa in la jaro ee gaarsiisay marka waxay tiri ma sameyn karo ani arintan intaana dambi iigu waxay tiri idinka ma sameeyeen way inkireen laakiin maxaa ku cadeynay oo ka qiyaas qaadanaysa inay sameeyeen ma iska sameeysid mar haday dhaheen maamadii way ii sheegtay arintii ii sheegtay waxay tiri dumar badan saa u sameeyo oo ma aragtay qanaacad darada u geyso laakiin aniga ilaahay subhanahu wa ta'ala ma aanan sameeynin inkastoo dambigaas galay ilaahayna waa uga toobad keenay taas qanaacad darada hadaan uga baxno waxa jira iyadana عدل لأنت أول وايو قريها واحد دمية عدل أول وايو ننكي أو ناقيه أو قبي وعدالة فلين أقول لحظة متكلي أقول لحظة رسول كان عليه الصلاة والسلام كيف يدو أقول سنجران صحابة دينا كيف يدو أقول سنجران سيسا مفلا أقول سنجران سيس شهوات أو مقول سنجران وحي أرورين جران نمان كيف يحفعنا ما عرفتاي محيط الشهيد تمي بي حوان كودي عرورتودي أرورين جرين لكن ننكي أو ما عرفتاي عدلقي لقوايو أو ما حل رباطان هدا ألابو كانت تيكال إنا أو كانت ومحيط لو حنكسو قبقبينا إن شاء الله بإذن الله تعالى عدلقي أو لوايو وحي كان إنسان ننكي أو ننع أولاحظو ما ننتي يوم القيامة إلهي سبحانه وتعالى وحو أهيا dadka mas'uuliyiinta ah waqfuhum innahum mas'uulun idinka mas'uuliyiin baa tihiin istaaga leeyahay waa la xaasiba oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ma aragtay xisaabtooda
ma dhamaanayso waxaan ku soo gabagabeynayaa waqtiga mawduucu uu dheer yahay laakiin in sha Allah biidna Allah taala intaasaan uga baxaya Faadimo Ayaan waxaan jeclaan lahaa magaceedu waxay ka hadashay burburka sidee horta qoys wanaagsan loo sameyn karaa sidee loo dhisaa qoys wanaagsan oo mujtamaca islaamka ah iyo bulshada qiimo u leh xamdiyay haddii aan dabagalo walaashay Firdowso Sheekh Xasan arrimihii ay ka dhawaajisay oo ku saabsanaa qoyska burburkiisa sidee qoys wanaagsan loo heli karaa waxay noqonaysaa mushkiladda ay walaashan ka shanqarisay xalkeeda in la helo bismillaah horta waxaa waayay sida walaashan ay u sheegtay waxyaalaha ugu waaweyn oo dhibaatada keeno waxa weeyaan jahli iyo tajaahul wax la dhaho jahli waxa waaye aqoon uma balihid ninkii aqoonba uma laha waajibaadka iyo xuquuqda laga rabo iyo maxay ahayd waxyaalaha ma artay xuquuqda asaga uu leeyahay iyo waajibaadka asaga lagu leeyahay maba kala garanayo waxa xal ah maxay ahayd in ma artay ilmihi la tacliimiyo oo diinta ilaahay la baro tacliin way badan tahay tacliinta in la baro العلم نور والجهل ظلمات متى كليتو تجاهل وحلدو out of ignorance ومعناها واد ignoraynaysa waxa leedahay مثلا wixii baad ogtahay mana rabtid inaad sameeyso taasna rageena Soomaaliyeed ay u badan yihiin ilaahay ha ka cafiyo hadaan xalki u soo dhaadhaco xalki waxa waayay horta anagoo idil aan ilaahay u toobad keeno toobadna suuxana laga helo ilaahay in loo toobad keeno waxyaalo yar oo fara badan oo hadii la ururiyo dambi weyn noqonayaan ayaa ma artay qoysaska dhaxdooda ayaa ku dhex jiro oo keenayo mashaakil ma artay waaweyn keenayo waxyaalahaas in la iska daayo beenta la iska daayo musuqmaasuqnimada la iska daayo khiyaanada la iska daayo been yaraan malaha insha Allah baabu tarbiya bay nagu sheegi doontaa abay ijaaba insha Allah taala ragga inay haweenkooda been ay u sheegin beenta way ka daba iimaanaysaa inaadan haweeneydaada aadan been u sheegin gabadha muslimada ahna inay ninkeeda been u sheegin oo ilaahay laga boqo ilaahay loo toobad keeno dambiyaalka yaryar oo guryaha dhaxdooda dhax socdaan مثلا waxay u kacaysaa booqashay aadaysaa ninkeeda ka qarinaysaa hadhoodii markuu weydiyo waxay leedahay meesha ay u kacday ma sheegaysa meel kale ay sheegi ilaahay ka baq gabar yahay muslimada ah waxyaalaha yaryar oo ururay waay waxyaalahaas yaryar oo ururay ayaa weeyaan waxa dambiga keeno burburka midda kale waxa waayay oo xal ah in ma aragtay sida aan sheegnay تعليم أو خاص أو ديني إلا لا يماذا كتابي القرآن كوان برني قرآن كوان برني الحمد لله رب العالمين لكن تفسير كيسة بدي من نقانو أيضا تفسير كذا إن نروحنا أن دمبلنا ومعنى هذا أن فهمنا سأن أقول أقنو أنا نقانين سيدي محيه إن نصارى سيدي إله سبحانه وتعالى وكير سورة الفاتحة ولا الضالين كير سناين أو كل إله هيجدين غير المغضوب عليهم kuwii carada ilaahay ay ku dhacdo sida yahuud oo kaleeto intay diinka ilaahay barteen ay garanayaan ay ku amal falaynin oo ma aragtay ignoraynay midda kaleeto waxa weeyaan مثلا الامتثال بهذه العلم الجليل practically in cilmigan lagu dhaqmo dhaqan laga diinteena waa dhaqan inaan ku dhaqanno oo ma aragtay aan waxba ka tagin wax walbo cinaaya khaas aan siino maxay aheeto aan siino ma aragtay dhaqankii diinta lagu dhaqmay aan siino midda kale waxa waaye aniga waa soo gagaabinaya as-sabru sabarka lidin sheegayo wax ka weyn oo ka qiimo badan ma laho awalan saan sheegnay cilmi inaad baratid ka bacdina aad ku amal fashid ka bacdina dadka aad ugu yeertid ka bacdina aad ku sabartid waxa waaye imaam Shaafici waxyaalihii uu noo sheegay oo afarta ahaa ayay ka mid tahay asabru ala almasaa'ibi dhibaatooyin baa guriga kugu qabsanaya gabar iyo muslimada ah waaye maxay to sadirow ayaa dhici kara sadkii baa yaraani kara qillatu rizqi baa dhici karta cinaadu zawji ninkii ku kibir iyo dib iyo mashaakil naaya aniga maxaad ii sheegaysaa imisa gabdhood baa idaba socota oo proposal ii keensanaysa
waxaa la rabaa waxyaalahaasoo idil baa ku dhibayaan gabarya muslimadda ah inaad u dulqaadatid oo dulqaad aad yeelatid ayaa loo baahan yahay sida maaragtay xaqiiqada oo dhabta ay tahayna zamanka aakhirka aan ku jirno waxa weeyaan haweenkina way badan yihiin raggina way yar yihiin annagana waxaabad moodaa xoogaago maadaama cadaalad sida abaayo ay sheegtay ragga laga waaye inaanan ogolayn in naagna lala guursado maana ogolin sababta waxaa waaye dagaalaa imaanayo oo halehaygii yaraa ani la isiinaya ila qaybsanaya marka taana walaalo siday u sheegtay waaye qanaaco ayaa ma arta looga bixi karaa way adag tahay way dhib badan tahay laakiin dulqaad iyo sabar ayaa loo baahan yahay waxaa imaani karaa xanuun bugto ayaa imaani kartaa oo ma artay ama odagaa bukooni kara ama adigaa bukooni karta in la isu sabro ayaa la doonayaa mashaakilka lagu sabro ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa muxuu nagu yidhi walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuci wanaqsi min alamwaali walanfusi wathamaraat wabashir asaabiriin waxaan idigu imtixaamaynaa wax ka mid ah cabsi gaajo maxay to dadka aad jeclad qaar kaa dhidhintaan maxay aheeto xoolihii oo kaa yaraadaan yaa iskale bishaaradaas maasha allah bishaaradaa waxaa iska leh qofkii sabro walaalayaalo waxaan had iyo koor idin farayaa oo idinkii nafteydaba aan ma aragtay nafarayaa inaan sabarno oo masaa'ibta adduunyada iyo aakhiradaba inaan ku sabarno ayaa la doonayaa waxaa la rabaa in la duceysto in la duceystaa la rabaa haddaan la duceysanin waxba lama helaayo in ilaahay la baryo oo waqti kasta ilaahay la baryo oo ilaahay dhurriya saalixa ilaahay laga baryo والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما فاطمة أيان أجر يا حسنات الله كسيه ولي وحنو كوجد جرنا قيبه دبّة برنامج كنا كلنا كحمدي وحن جعلنا لها قبلها برنامج كنا قلا قيب قلا قبل بدنا وحبرتي أرضي خاركود جورسا مركوع عصبة الدنيا وهرلاد هنا للجوجا إذن كنا الوقت جينا دنسينا وحي فكر يطلع أكو بيرنا إنسان إن مركز قيسكو wuxuu ka bilowday labada qof ee lamaanaha ee shalay isdoortay waxa laga yaabaa markii la isfaham waayo waqtiga uu dhamaado burbur qoyska uu ku yimaado hadii meeshaas awlaad ay joogtay dayaca ugu badan wuxuu iyo dhibaatadu waxay ku dhacdaa ilmaha xagga tarbiyadaba ha ka dhumaan mas'uuliyadda marka la fiiriyo ilmaha labada waalid yaa horta waajib ku ilmo badan waxaan aragnaa hooyooyinka ay hoystaan oo qaarkood aad moodo agoon aaba leh ijaabo ilmaha Soomaaliyeed dayacan maxay ka qabtaa horta diinta islaamka marka la kala tago mas'uuliyadda ilmahaas بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال شائع ويديسي وسؤال آد مهم وآه قف كستنا وقرنايو مسؤولية دا قفك لو ديبي قفك مسؤولية دا وحا إسكاله أو لو ديبي رقا إسكاله لأنه تاس محان نوع الديناية raggii markay leeyihiin raggii siday wixii mas'uuliyadda loo dhiibay iyo tarbiyadii muxuu ilaahay kitaabkiisa uu ka yiri waxaan soo qaadanaynaa suuratul luqmaan a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim walaqad aataynaa luqmaana alxikmata an ishkur lillah waman yashkur fa innamaa yashkuru linafsihi waman kafara fa inna allaha qaniyyun xamiid aayadda ku xigto maxay leedahay markuu luqmaankii xikmadda badnaa wiilkiisa uu la hadlayo muxuu yidhi waid qaala luqmaanu libnihi wahuwa yaciduhu yaa bunaya laa tushrik billaah ina ashirka ladulmun cadiim waxaa weeye mas-uuliyaddaas waxaa iska leh raggaa iska leh laannahu rijaalka ay mas-uul ka yihiin waxay ka yihiin dumarkii iyo caruurtii marka dayacaadaas la dayacay waxaa keentay qofka wax ma dayici karo haddii uusan asaga markii horeeto lasoo tarbiyeeyey qof wax dayacay haddaa aragtid waxaa waaye qof asaga markii horeeto tarbiyadiisii ay qalal gashay ama ay xumaatay markuu qofka tarbiyadiisii ay xumaato asagana wuxuu dhalo ma tarbiyeyn karo waxaan aad cajiib u ah marka qaarkood ragga markii iyo reer baa waxaa laga yaabaa inay isqabtaan ku tiraahdid reerkan ha duminina ninka gabadha waxay ku leedahay silac ku nool soddon guursataa dhaanto subxaan allah ilaahu soddon dhun hortaa noo guurinin marka mahmaahdaasayto aniga weligay horta mama maqlinbo laakiin qurbaha markaan tagaan maqlay horay hooyaday iyo dadka iyo ogama maqli jirin ninkiyaa soo haray ninkii haddaa tiraahdo reerkan ha duminin wuxuu kugu leeyahay anigaba hooyo la-aanaan kusoo koray maxaa ka macno ah
aabala-aanan kusoo koray maxaa ka macnaa istakfirullah markaasiitu wuxuu waxaa isaga ma garanayo waxa dhan uu guriga u dhisila yahay ama uu u dayacayo mas-uuliyaddan inay tahay aabala-aantii uu soo koray liannahu ilaahay markuu qofka uu abuurayay wuxuu ka dhex abuuray laba qof aabbiyo hooyo aabbihi hooyadii uu ka dhex abuuray waxay u baahan yihiin inay mutakaamil inay iskaamilaan aabbihiina uu u soo shaqeeyo iyo mas-uuliyaddii kore uu qaado hooyadiina ee ilmihii tarbiyayso laakiin haddii uu asagii uu dayaco asagay dembi ku tahay reerkan adaa ka mas-uula mas-uuliyaddii aad qaadi weysay darteed waa lagula xisaabtamaya soomaalida dhibka ka jiro tahriibka balaayada gabdhahan la wada furayo gabdhahan iska socdo oo muxram la'aanta kulli raggii dhalay baa dayacay ilaahay hortiisana ayagaa la weydiinaya marka waxaan aad iyo aad dadku ugu boorin lahaa qofka mas-uuliyadda inuusan qaadin hadduusan qaadi karin لأنه هدو مسؤول قاد واجب يكون قنيسة لكن قصب ملغو دهايو إلو مسؤول قاد هدادا قادي كرين مركه هربك فكر intaas kadib waxaan rabaa ilmihii waxa markii la dhalay kadib tarbiyadoodii ilaahay sibuu ugu talagalay muxuu ugu talagalay ilmihii horta qofka labada qof markii ay laba qof oo isguursadeen meel fiican ka yimaadeen siday walaalo noo sheegeen habkii uu ilaahay uu doortay maaragtay ama kitaabada aan ku aragnay ama nabiga kaleey salaatu wasalaam noo sheegay lagu guursaday kadib maxaa loo baahan yahay waxa loo baahan yahay reerkan markay isu yimaadaan oo processkii loogu talagalay dhan ay soo dhaafaan horta hore inay fariistaan oo duceystaan markay duceystaan kadib ay ka hadlaan reerkan la dhisay sidee loo wadaaya ilaan wax walba adduunka joogo wuxuu leeyahay rule and regulation uu leeyahay sharci buu leeyahay sharcigee rabnaa gurigan habkee rabnaa inaan u dhaqanno habkee rabnaa inaan wax u suubino ilmo markaan hadduu ilaahayna siiyo oo risiq ilaahay nagu irsaaqo sidee rabnaa ilmahan inaan u korino maalin dhaweeda gabar waxay iga sheekaynaysay ninbaa wuxuu ka soo tegay 6 caruura 7 caruura gabar kale uu guursaday oo wax baratay oo kala arag ma sha Allah gabadhiya waxay leedahay ninkan maxay naagta ku soo furtay waaba nin fiican maxay isku fureen waaba nin aan la heli karin waxaan aniga markii la ii sheegay Allahu akbar reerkan horta caruur markay dhalaan kadib su'aashaas la isweydiinayaan ku iri dhibkaba wuxuu yimaadaa markii wax la dhalay intaan wax la dhalin dadku waa saaxiib wax la isku qabanayaaba iska yar haye wax macnaaha ma israacnaa haye hatta dhaqaalihii oo kale tumaba la isku qabsanayo laanahu labadan qof waxa way maxay cunayaan laakiin markay caruur timaado oo mas'uul yimaado oo cunno timaado oo isbitaal yimaado oo xafaayad timaado oo iskuul yimaado oo dugsi yimaado maalintaas waa markay shidada bilaabanayso marka waxa waaye mas'uulka ragaabu ilaahay saaray dumarkana waa inay uga dambeeyaan macnaheeda waxa weeye haddaan guriga la kala dambaynin gurigaas waa dumaya inuu dumana marna naagaha dumarka keena marna ragga keena mar dumarka keeno waxa weeye mar alla markay wax dhashay inta horeeto raggii markii la wareystay waxay la yiraahdeen on research suubina waxay yiraahdeen gabadha intaysa wax dhalin waa ma sha Allah kala arag markay hala cunug dhashay 2-3 markay dhashay ninkaanayto maba ku bixin kare waxa rabtid ka sameey waay ninkiina muxuu sameeynayaa gabadhan waxbay dhashay meeshan maba ka bixaysay adi maalba furiinka ugu bootay marka هذا واحد سميس وكفرة واحد سداد سميس وكفرة ما قد جرى ناقتان نفري وحان هذا كهر يربكو أكر الجري الله يرحمه إن الشيخ عمر فاروق وحي بركو نوي من 1993 وحي نوي من مجال إسويدن اللي يراه وحي سمينا يرجع دلقتكو طلبوا توسدح مركي دنبي للشيخ وقيل رادي مركا سوى حيالنا مركا سولي مركا هريتو محا سجد ليسان بهاشانيتو in lagu dheelo looguma talagelin markay wax laga fursan waay laanahu guri dumay arshiga ilaahay ayaa ka gariira shaydaanka reerkaas isku soo dirayna waxa la fariisiyaa kursi aan dadka kale la fariisan taajna waa loo saaraa marka guriga weynanka uu leeyahay annagana waxa Soomaali hadanahay aad noogu batay waxaan la yiraahdo furiinka gabar 20 aan gaarin oo waxa arkaysaa 2 ilmood wadato maxaa keenay koow sabirka waa yarya هذا قبلها dhalinyarada ay raga joogo romantic iyo flower in la isku keeno iyo ma sha Allah gabar yahay I miss you iyo darling iyo wal sidii yaqaana laakiin sabir waa ibr waa mahadsantahay ijaabo Maryan Shariif gabdho badan oo Soomaaliyeed barnaamijkan hadda nala jooga qaarkoodna barnaamijka daawan doona marka in laga hadlo qoysaska Soomaaliyeed furiinka ku badan guurkana waa ku badan yahay waxa arkaysaa xaafadan hadda isliin baa degan naag ilmu leeyahay
waxa laga yaabaa subaxii guriga ka quraacda sawdsiinana kala qadada u tagaa oo qod basira ah aad qod basirada noogu soo badatay horta diiniyan waxaan guurkan la qariyay guurku waa wax sharaf leh sababta loo qariyay ninkan laga yaabo inuu qoyskan iyo naagtan ka cabsanayo laakiin haddana dhibaatooyinka ay ka mid tahay marka la ogaado dhow lagu kala tago maxaan dhihi karnaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وجعل من فطرته الزوجية ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد الهادي إلى شريعة الحق والأمن والأمان سيدا هوري قبلها ولا لها يوشيغين به قورك اي فلنغيين لنعيدي سيدان أهدافتي سي ثمرات كي سئيو وحو معناها خسارة دي سئيو كل معنى خسارة أو كي مادة اي فلنغيين أنو أنواع دمستريا كليا أنو وحان كهذا يا إن شاء الله تعالى قورك قبلها الصوماليات dhibka kaga yimaada dal iyo dibadba markan soo qaato micnaha dalka waxyaabaha hadda laga dhawaajiyaa ka mid ah gabdhaha dhibka hayo ay nimanka ku hayaan oo micnaha garoobadii ay bateen maxaa dhaliyey marka waxaa dhaliyey sida la sheegay diin la'aan oo diintii lagu dhaqmaynin iyo sabarkii oo diinta ka mid oo la haynin iyo معنى الزوجية إن لفهم سنين أي نمنكو فهم سنين دين هل هذا أما يوسال هانين وحاد مودعين يبقوبتين رقا لنعاس سيدا ينو شيكتي حمدي ولا شين نمنكا وحاسورتو إنو انت ناكو قبو دالكا معنى إسلا دالكي حافت كالو اوكو قبناك كالي او قرسان قرسودي محي دينتي كقبتا قرسودي الدين معنى قول لقريو نبي عليه الصلاة والسلام لقوا مقلين متعائي وحلميد ايو وحجاهليد يكون نقمة شرين وي مركا قور كاس مبنانا واي قور كهلا اعلامي ويرم رسولك هلا قرية مؤسن بهن واي اوبد ايه نسلا كدالان دونا ميشا مركا ان لإلاليو الاحترام الربا ودد الهي ودجيهي سبحانه وتعالى ان لراعو مركا اوسان نقضو قبلهن ودالكا قروبا ايه كوبتين waxaa dhacday nin ayaa gabar noo dirsaday gabar markuu noo dirsaday markaa meesha ay gabdhaha iskugu tagaan masaajideedii aan tagnay oo bal arrintii bandhigno dad u dirnay waxay gabdhihii yaraa garoobay wada yihiin wiilku wuxuu rabaa gabar aan garoob ahayn ayagaana garoobeeyey wamaca daalika waxay raadinayeen gabar oo bikra ah ay raadina ayagaana sabab u ah inay garoobeeyeen saasayna gabdhahayna yar u dayaceen ragga ilaahay amaam allahi halkay geli doonaan raggii ayaga ahaa taa waa tan dalki weeyaan waxaa kaloo dhacday dibadda ninaa inta ilmo iyo naag xaas uu qabay iyo ilmihiisa uu dibad u dirayaa asoo kaga cararaya biilka inuu meeshaas kaga harayo moodaa goormee qawaamadii ilaahay saaray goormuu macnaha uu laga nasakha asaa goormee laga wareejiyey yaase ka wareejiyey qiyaamo ilaahay hortii muxuu la tegi doonaa intuu ku qabaa xaas iyo ilmo wuu diray dibadduu u diray markuu dibaddu u diray sidii macnaha ay ilmihii iyo meeshii gaalo la wareegtay waxaa kaloo jira nin oo asagana sameeyey intuu xaas ku qabaa iyo caruur wuu ka tagay xagguu uga soo shaqaystaa biilkoodana wuu u soo diraa laakiin 2 sano iyo wixii ka badan ka bacdi uu yimaadaa fasax iyo wuxuu ku imaada ma aqaane marka sidaas uu yimaadaa waa garan kartaa culeyska ku jira meeshaas waxaa jirta nin oo dibadda inta tagay oo gabar kuursaday system ajir iyo nidaam ay dawladdu walba ku dhaqan sida ogtihiin systemka isaga ah uu galiyay gabadhi waa computerka inuu xaaskaaga yaa gelinaysa waa laga maarmaan tu kale isla meesha ka hel haddana uu guursaday taa waa tii qarsooneed marka waa 2 naag ma ongolo gaalada taa waa tii qarsooneed xuquuqdeeda iyo kulli la qarso oo bahaysan qarsooneed caruur boo sidii dhuumasho kaga dhalay ayadan waxaa loo haystaa inuu boyfriend qabo inuu boyfriend ilmaha kaga dhalaa loo maleeyaa nas inta waxa ka sii daro qasaaraha weyn ah adduunyo aakhir way kala badan yihiin haday gabadha si noqoto ama ay dhimato gabadha ilmahaas dhashay qarsooneed ilmihii asaga hadduu intaagan ma helayo gaaladii baa totally la wareegayso waa eega nafaqayn jireen marka walaalayaal intaas oo dhib ay wax ka daran jiraan marka anoo ku dheeraanayno qodobadeyda marka dal iyo dibadda saas uga hadlay walaalayaal Allah subhanahu wa ta'ala waxaan ognahay inuu saaray ragga qawaamada guriga inuu saaray
gabadha mas-uuliyad way saarantahay iyo ragga way saaran yahay qawaamadda wuxuu gaar ahaan ilaahay u siiyey ragga isweydiinay goormee ragga waxaa weydiin iga oo su-aal u diraya ragga goormee qawaamadii ilaahay idiin saaray oo ehelkiina idinka saaray goormee idinka wareegtay yaase idinka nasakhay marka taa markaan ka soo gudbo walaalayaalow way dayaceen caruurtoodii bay dayaceen tii 2 sano laga maqnaa ama 3 sano oo loo yimid markaas ka bacdi waa ogtiin dhibka jira xuquuqdii aaway gabdhahan fursad siinaynaa qofkii talo ama fikir magacaygu waa Saynab Cabdi Seeraar الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم walaalihii inoo muxaadireeyay muxaadarada qayimka ah ee guurka ku saabsan waxaanu leenahay jasaakumullahu khayran wa khayru jasaa wa athqala allahu fi miisaan xasanaatikunna wa axsana allahu ilaykum yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbi saliim wa bacdu waxaa laalida wixii guurka ku saabsanaa walaalihin baa noo sheegay ilaahay khayr badan oo xasanaadaha ka siiyeen guurku sidiisaba walaalayaal waa mas-uuliyaddaasoo saaran ninka iyo naagta isguursanaya mas-uuliyaddaa haddii la gafo waxaa waaye labadii qofba way ka hoos baxaysaa mas-uuliyaddii rasuulkeennu salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi wa anaa zaciimun bibeytin fi laclaa liman xusina khuluquhu yaan u ballan qaadaa buu yidhi rasuulkeennu ciddii akhlaaqdooda iyo dabeecaddooda ay wanaagsanaato waxaan u damaanad qaadayaa buu yidhi beyd jannada korkeeda ahaaday beydkaa jannada korkeeda ahaaday maxaa lagu helayaa waxaa lagu helayaa markaad akhlaaqdu wanaagsanaato dabeecaddaadu wanaagsanaato qof dabacsan aad noqoto nin aan dabacsanayn oo reerkiisiiba u dabacsanayn iyo gabadh aan akhlaaq lahayn maxay iskeenayaan maxayse iska dhalayaan أولاد أن صح هين بس كذا ليان كوان هذا سوبر باور كالنقضي وحن الجرم واي بس كذا ليان لكن جواد مسلمة دا أو دينتي إلهي كل رقم سو دبعسن يويل مسلمة أو سيد إلهي رحمة دي وإلهي شيء اللي جهلي وحكينا يا أولاد وناكسن يا مجتمع وناكسن سيد الأجر قد وحى الله رباه قبلها مسلمات كي رجع مسلمات كبا إن أي لي مادان أخلاق وناكسن يو دبعد وناكسن si ay mujtamac wanaagsan u yimaado meesha marka hadda la fiiriyo Soomaaliya wadankii burbura ka dhacay shalay wadanku wuxuu lahaa xeerka qoyska haddii ilmahan dayacmaan haddii ninkii naagta isku xadgudbaan meel loo dacwoodo iyo dawlad xakameynaysaa jirtay dawladii ma jirto booskeedii dadka in ama hala tahriib ama hala dhoofay dibadaha la galay ma la dhihi karaa guurka laftirkiisa dhoofka horta dhinac buu ka baabiyo oo fudaydka buu ka keenay maadaama ninkiiba waxa laga yaabaa 10 caruur iyo 20 iyo 30 iyo 5 naag wuxuu qabayba qurbiyaha hadii la galo dawladda u biila shaqab inta taga wax ma biisho mas'uuliyad darada qayb ma ka tahay burburka faraha badan ee nagu dhacay iyo dhoofka dibadda ee dawladaha ilmaha ay u korinayaan dadka inuusan ninkii shaqaysan reerkiisa uu sabiilin uu sagaranaynin mas'uuliyadii qoyska uu ku lahaaba kulli burburka guurka iyo asaasoo kale oo awlaadii la dayacay oo haween badan awlaadii lagu dayacay dabcan waxay ku kadiftay inay tarriibaan ama UN-ka inay ka dawareegtaan sababtoo ah aabihii baa ihmaaliyay marka haddii xagga tagaan dabcan ayagoo macnaha dad systemkeena islaamka camal oo lahayn weeye oo islaamnimo ku dhaqmaynin laakiin balse oo wataan micnihii iyo wixii weynaa ee islaamku laga rabay inay ayaga haystaan ilmihii ayagu way qaabilayaan way tijinayaan nafaqo iyo wax walba way u qorayaan taa macnaha kulley sababta ku jirta iyo waxa hoos yaalana alla og laakiin saasa micin doon ay bideen dadkii way tarriibeen ama badaha ku dhamaadaan haweenkii ama macnaha allaha badbaadaan ayid nada wax ku kabaysiin jawaahir iyo ninka markuu wax biilan lahaa oo nin wax qab ahaan lahaa hadiiba loo biilay mislada halkaas wax ka dhumeen maya waxa weeye horta hore sida aan la socono mas'uuliyadda horta hore ninkan ama ha loo biilo ama yaan loo biilin asagay saaran tahay marka koowaad marka labaad haddii dhululkaas la tagay say ay noo sheegtay Maryan Shariif waxa weeye horta hore qofka waxa loo ogol yahay in loo qoro hal naag kaliya
waa iyaga sharciga ay degsadeen naagihii kaleeto oo hadduuba meeshii uu geeyo wuu ku qasban yahay ninkii inuu u shaqeeyo mas-uuliyadiina qaado oo laannahu mas-uuliyadan midaan loo biilayay iyo midaan loo biilayninba waxaa ka qiimo badan qofka nacam wixii uu shaqeeyey markaas qofka waa xor diinteenna annaga kama soo horjeedo dumarkan badan laakiin ayaga diintooda maadaama ay dad gaala yihiin midaas ka badan laguu qorimayo marka ma u malaynayo inuu maaragtay nafaqayntii uu nafaqaynayay iyo mas-uuliyaddii ay lahayd inay ka qaadayso meesha uu tegay darteed raggoo dhanna ma aha rag waxaa jira dhowr naagood qaba oo meesha degan oo u wada shaqaysta inkastoo ay adag tahay dhulkaa markii la degan yahay ay aad u adag tahay ilmihii inaad caawintid ilaan meeshii shaqaale ma joogo ilmihii waa inaad iskooladooda noloshooda ka warqabtid ay yaro adag tahay laakiin haddana kama dulqaadayso waxaan rabaa inaan wax yar tacliiq ka bixiyo xeerka qoyska hadda ma u malaynaysaa xamdiye burburkaas maanta Soomaaliya haysta inay tahay xeerkii loo dejiyay ee aan Ilaahay kitaabkiisa ahayn burburka maanta Soomaaliya haysta iyo dawlad la'aanta iyo masiibada ay dhashay dadku waxay u maleeyaan inay tahay qabiilkii 91 ma aha waa xeerka qoyska markii la sameeyay ee la dhahay dumarka iyo ragga way siman yihiin Ilaahay wuu simay waa إنسان نمد إلهي أبورست وكسمي إلهي سبحانه وتعالى لكن قف والبوحي وكفي عنا الله أبوري باسي مثلا قبل مهر إلى ذا نك مهر موليه إلهي سبحانه وتعالى نك قوام نما لسيه وللرجال عليهن الدرجة لا محن نك وهوانتا وليه وقرنا في بيوتكن قرجنا جوج المين ما أردت إلى عشرة محلات هاي إلهي سبحانه وتعالى من والبا إيساقبا مهركي إلميها النوالا وضع دالي شهبادنا والا وضع قوتي هادانا قبادي مهر ديرادا لسي هادانا كوركادي با نفقادي إيساقا كوركادي لغا ساري حتى هادي مال ليدا إيساقا كوركا لغا ساري وحان قبا أنيقا حيركي قويسكا إي صوماليا بربر كمان تتاغن إنو سبب ويهي أرنتا إنا هيسا تهريبتا شبابك هوغ بقى مقفها وحاسو دن أبارتان حتى التاغن إني ليضهي لأنها إلهي سبحانه وتعالى ودل بدن يهي لكن مركو إمادو إن أخذه أليم شديد مركا إلهي سبحانه وتعالى أن طابت كانوا كتاب كيسو إلهي نوسو دجي قوامين توسو إلهي نوسو دجي رسول كان عليه الصلاة والسلام بانو بيانية إلهي إنا نكون قنو أن دينتين إيمان سنو إلهي بان أرزاق دبحية إساقانا ما أركت إعابود دهي مالكستو أن جوغنون حتان آمنو oo Allah ku dhaqano guryaha ka bilawno waxaan hubaa in dawlad iyo wanaag iyo sharafnimadii Soomaaliya iyo karaamada inay soo noqonayso firdawso ma dhihi karnaa guurka horta siisaba maadaama gabdho culimada aad tihiin wuxuu ku wanaagsan yahay in la adkeeyo oo qofka markuu wax guursanayo horta lagu dhibo si furiinka loo xadado guurka hal la adkeeyo dhibaato macnaha hadalkaas iskama aadan dhihine dhibaato maaragtay ka dhalatay ayaad u tiri waxa waayay Soomaali waxay tiraahdaa oonka waxa keenay oraxda waxaan u malaynaa culimo waaweyn culimadina soo wax bartay way nool yihiin way joogan badankooda arintaas inaan dib oo la noqono oo culimada aan maaragtay aan wax ka soo weydiino ayay kalifaysaa marka guurka laga hadlo rag waxay yiraahdaan afar baa horta waxay dumarka ku baasleen afar baa alla noo baneeyay guurkana sidiisaba waajib diiniyan ma ahan qofku waana guursan karaa waana iska deyn karaa qof cadaab iyo janno ku mutaysanaay mala maxaa u guursan weeda oo kale aakhir la isweydiin maayo marka la fiiriyo waxana ugu badan wadaadada ama culimada wax baratay xogaa waa ka jeebrooyin kuwa kale waa ka dhaqaale badan yihiin waxa laga yaabaa malabkooda iyo xabadsoodadooda iyo dhaqaalahoodana waa badan yahay waxa rag kale inay ka horeeyaan u malaysaa ninkan waxa laga yaabaa inuu balwad leeyahay meeshu naag ka qaba 3 naag balwadaaba ka badan oo mas'uuliyad kala saaran oo culays ku ah furiinka faraha badan culimada ugu badan laftirkeeda asagoo diintii bartay markuu maanta gabadhan furo barmid kala furo 4 iyo 5 kala barba dumarka isaga uu soo maray diintii uu bartay aaw mas'uuliyadeedii xaqiiqatan horto ilaahi subhanahu wa ta'ala wa maxayto
wuxuu sheegay nabiga calayhi salaatu wasalaam adeerkii asagoo faallo oga bixinayo innaka laa tahdi man axbabta walaakin allaha yahdi man yashaa dhibaatooyinka way jiraan boqolkiiba 80 way jiraan dhibaatooyinka aad sheegayso xamdiyey balse waxyaalahaasoo idil markay yimaadaan sidaan aan ku gabagabeeyey hadday khitaabkaygii allabari baa looga baxaa allabari in looga baxo ma dhihi karno gabdha iyo wadaadada ya idiin soo dhowaanin ma dhihi karno mana dhihi karno wadaadadii oo idilna dembi ma wada saari karno maxaa yeele waxa waaye wadaadada waxa waaye waa indhihii mujtamaca waxay dhahaan culummo qiil ma weyse adigu qaalin ma haysa marka xataa saddexdii markii la isku furo qiilkii way un keenayaan marka waxaa waaye culummadeena ilaahay soo hanuuniyo kuwii howlaha ku dhex jira wadankii burbura ka dhacay noloshii qofba meel ay ka gashay waxaa laga yaabaa in dadka aysan isku meel daruuftii u helin inay ku wada noolaadaan horta sharciga islaamka maxay ka qabtaa kala maqnaanshaha safraha badan muddo intee la eegaaso diinta ogoshay in labada qof ay kala maqnaadaan diiniyan bismillaah kala maqnaanshaha waxaa waaye labay noqon kartaa mid duruuf ay ka kaxayso oo qofkii sidii hadda Salama oo kale radiyallahu anha markay soo haajirayeen asxaabta haweenkoodii waa soo haajireen diintaadii markaa la haajiray sidoo kale waa kala tegi kartaan wadankii maxay toole markii dhibaato sideenoo kale wadankeena ay uga dhacdo burbur iyo dhibaato hadda qoys isla wada nool ma jirto caruurtii aabihii kulli waa duruuftii kala kaxaysay laakiin haddii uu qofkaas kas iyo maag iyo maxay toole xuduudii ilaahay uu jaraya haddii uu 6 bilood ka badan ma maqnaan karo ninka sharciga islaamka kama maqnaan karo haweenkiisa yacni ilaa ay duruuf inay isaga raali yihiin ma ahane 6 bilood kaliya loo ogol yahay inuu ka maqnaado ijaabo waxaa soo batay guurka qodbasirada saa hore u sheegnay horta diiniyan ma xalaal baa ma soo xaaraan ani u malayn maayo nin qodbasira Soomaalida magaca isaga bixisa maahine gabaraan nikaax lagu xirin ma jirto ha marka hadii la qariyay kullayba qariskaas la qariyay ani waxay ila tahay nikaaxi haduu dhacay qariskan la qariyayna labada qof oo isqaba isaga raali ah hadaysan gabadha raali ka ahayn lama qariyeen ani say ila tahay maskaxiyan ahaan taasna culimada ka jawaabayso culimadii baa joogta qodbasirada horta waa labo mid waxa waaye mid ay raggu naagahooda ka baqayaan gabadhii weligeedii la weydiisay laakiin naagta laga qaninaya waxa la leeyahay cidnayaan loo sheegin meel buu dajisanayaa maalintiibu hadduu doono markuu shaqada aado ama salaada subax markuu soo tukado buu imaanayaa wuxuu la joogayaa ilaa 2 saac 3 saac masaajidkan quraan ku soo akhriyo oraya hadhow xaaskiisii aadaya midina waa midaan banaanayno kaasi ma banaano oo waa qudbasirada la sheego oo ay nimanku qarsadaan sida la ajreedkaasi waa xaraam laakiin kan kale weligeeda la weydiisay naagta uu buu ka baqayaa mooyaane reerkoodii uu weydiisay wayna banaan tahay laakiin tii la guursadaa dib ku qabto haday xanuunsato iyo haday umusho midna lama oga kaligeed baa qolka haday habeenkii xitaa qolkii ku meedo cidima oga haday xanuunsato kaligeed baa dhakhtar aadaysa oo wax qarsoon laakiin diinta uu ku banaan yahay weligeedii uu weydiistay hadii aan ka hadalno su'aashii aan weydiisay wuxuu ahaa xukunku islaamka ka qabo qudbasirada maxay tahay saddex qaybood ay culimadu u qaybiyeen qayb waa kii gabadha ay ka hadashay laba qayb gabadha ayaa ka hadashay oo waxay tiri mid waa inaysan ka warqabin ehelkii oo cid ka warqabta jirin welina ma oga nikaaxaas waa baatil sida culimada ay sheegaan inkastoo qowl oo aad u xoog badnaan uu leeyahay gabadha rin way guursan kartaa kan labaad oo gabadha ay ka hadashay waxa waaye in waxa la dhahaa ehelkii og yahay laakiin naagtii uu laga qariyay kaasna imaamu axmed naftiisa wuxuu u kala qaybiyay culimada labay u qaybiyeen imaamu axmed wuxuu diiday in la qariyo guurka aslan oo wuxuu sheegay iclaanu nikaax baa guurka loogu talagalay waa in la ogaada culimadana waxay dhahdaa qayb ummadda ka mid ah hadday og tahay intaasaa kaga filan iclaan oo in shakhsiga walba uu ogaado qasab ma ah marka wixii maslaxa loo qoriyay muddo muayana oo muddo waqti gaaban ah dib ma leh laakiin in la dhaho gabadha weligeed ba qarsanaato sida gabadha ay sheegtay dib ayaa ka imaanay islaamkana dib kama ogola la darar wala dirar wax kasta oo dib keeno waa in la zuuliyo dibka adrar yuzaal maadaama guurkii haduu dib ka imaado mid lagu degan yahay oo nafti ay ku xasilan tahay ma noqon doono sida darteed waxa ka ratibmaya noocaas guurka kamid ah in aan la aqbalin oo la joojiyo oo islaamkana uuna ayideynin waxa jira guurar laftirkooda shuruudo ah
waxaa laga yaabaa laba qof isjeclaatay waa la sheekaystay inkastoo hadda nimanka hadda joogaba guurkaba ay gogasho u fahmeen qaarkood oo guurkaba loo maleeyo inuu intaas lay ku egyahay muddo isqabaynaa 5 bil 3 bil 2 bil haddaan isfahano oo labadanada aan isfahmi karno oo dad isfahmaya aan noqono waa dheeraysan karnaa guurkaas laftirkiisa shuruudda la isku guursanayo maxay diintu ka qabtaa guurka xaaraan waay nikaaxu mutca la dhahaa xaaraan qadci waay la iskuguma imaanaya ninku hadduu ila guursado intaan cadhaysanaya guriga ma ka caydhin karaa horta ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu dhahay qur-aanku uu ku sheegay wacaashiruuhunna bilmacruuf wuxuu amray mucaashara xasana dhaqan wanaagsan dhaqanka wanaagsanna waa laba dhinac inuu ka imaado hal dhinac kelima aha haddii aad xanaaqsan tahay waxaa wanaagsan in aad kala hadashid arrinkaas oo aana ka codsatid inaad adiga u baahan tahay inaad nasatid ama aad ka maqnaatid muddo si mushkilada loo xaliyo laakiin ma aha guriga iiga bax iyo inaa adiga ka baxdana kuma banaan inaa asaga bixisana kuma banaana sharcan laakiin wixii laisku afgarto aad dhahdo aniga sidana dareemaya xanuunkana ahaya waa masiirsanahay dhibna ma aha inaad ka sheegtid inaad sheegtid sidaa dareemaysid waxaan u baahanahay inaad nasto waqti isii taas haddii uu ka ogolaado inuu guriga ka baxo iyadoo lagu wada heshiiyo dhib male haddii adiga uu ku ogolaado inaad baxdo muddo kadib aad soo noqotana dhib male laakiin in guryaha lagu burburiyo sabab ninkii naag labaad uu guursaday ani muu arkay xal inay tahay waayahay intaan barnaamijka soo gabagabaynin gabdha yar yar barnaamijka inta badan nagala qayb galaayo oo laga yaabo qaarkood inaysan wali guursan adduunyada waa u hor leedahay ninna waa rabaan iyo inay aroosaan maxaa talood siin lahaydeen horta gabdhaha si u noqdaan gabdho wanaagsan oo qoys islaam ah oo wanaagsan oo Soomaaliya u soo baxo horta gabdhayahow waxaan idinku talinayaa horta midda ugu horeyso Ilaahay cabsidiisa ayaan idinku dardaarminayaa xoogaago waxaad moodaa ilbaxnimo casri inayna soo gashay gabadheena haddaan aad caroodo macnaha haddaan masayro ninka guriga ma ka cayrin karaa tiiba waxoogaa aan daba socda horta ninka ilaaha qawaamo siiyey inaan ma artay aan mas-uuliyadiisa inaan u ictiraafno guriga asagaa iska leh asagaa maxay tahay yaa mas-uulka ah nin gurigu mas-uulka ka ah haddii la dhawaa laga cayrin meesha dagaal xun baa yaalla marka inaan mas'uuliyadii aan ogolaano nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiraahdaa qof bini aadan aan u sujuud dhihi lahaa haweenay ayaa waxaan dhihi lahaa ninkaaga u sujuud meeshaas ay jirta arinta horta meeshaas ay idiga jirto haddii ma artay ninkii uu kugu xumaadana waxa la rabaa inaad ilaahay ka barido nabiyullaahi ibraahim marka idima badinay laakiin example ah u soo qaadanaya markii maxay aheeto ay gaaladii ay dabka ku rideen muxuu yiri ilaahay subhanahu wa ta'ala ya naari kuni bardan wa salaaman ala ibraahim ilaahay oo ninkan xunka oo dhibka badan oo marka hore nin fiican iskaga kaydhigay oo sidaa ku guursaday oo haddana markii dambe ila soo baxay through kalagis ila soo baxay oo macna wajigiisa iga qarsoona waji kale ila soo baxay ilaahayow adiga bardi iyo salaam iga dhigi kartaa horta waa inaad tiraahdo gabar muslimada ah maxaa yeelay waxaan meesha ka bixinay wax maqaadiir la dhaho gabdhaha horta inay isku kalsoonaadaan kalsoonidooda iyo self esteemkooda inay kor u qaadaan inay haday guursanayaan ninka ay guursanayaan reerkooda ay u keenaan laga fiiriyo haday reer ku yiraahdaan ninkan nin fiican ma aha ilaan waalidka wuu ka garasho dheer yahay wuu ka weyn yahay in uu yiraahdo ka istaag inay waalidka warkooda maqlaan gabdhaha guriga leh waxaan ka waaninayaa nimanka markii ay guriga yimaadaan oo shakiga iyo shidada lagu ibtilay ninka markuu taleefankiisa komadiinka saaro inta qaadid ha fiirinin oo ha dhihin yuu la hadlay yuu fiiriyay wax walbo ilaahay ka qiriyay qiimo iyo wanaag baa ku jira aad u mahadsantiin intaas ayaanu guud ahaan ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena kulanka xamdi oo aanu kaga hadlaynay guurka iyo faa'iidooyinkiisa iyo dhibaatooyinka ka dhasha waxa barnaamijka marti inoogu ahaa gabdhaha barnaamijka nagala soo qayb galay waa u mahadcelinaya waqtiga qaaligoodna soo siiseen qilwa oo gabar aad u da'yar ah qayb weyna barnaamijka ka qaadatay Firdaws Sheekh Xasan Jawaahir Faadimo Ayaan iyo Shariif intaba waxaan idin leeyahay la shukr cala waajib barnaamijkan wuxuu ahaa barnaamij aan ka wada qayb qaadanay waxaan idinkaga mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad waqtigiina qaaligeedna soo siiseen iyo sidaad nagala soo qayb gasheen waxaa dhanka ka marday inoo jooga Axmed Nuur iyo Mawlid